Assalaamu calaykum saaxiibayaal, halkani waa Aasim Media. Kusoo dhawaada qaybtii shanaad ee qisadii jaceyl ee Faysal iyo Faiso. Waxa ayna noqon doontaa qaybtii ugu dambeysay ee aynu uga hadlaynay qisada jaceyl ee Faysal iyo Faiso. Balse intaan u gudagalin daawade, waxaan ka codsanaynaa inaad like noo saarto muuqaalkan. Haddii aad channelka cusub tahay, nagu soo biir oo subscribe dheh. Kusoo dhawow muuqaalka oo dhameystiran. habeenka waxay ahayd habeen mugdi ah oo taariikh ku leh nolosha Faiza. Faysal waxa uu hoyday xabsiga dhexe. Faiza waxa la seexiyay isbitaal. Caruurteedii waxa ay la seexdeen gabadhii dariska la ahayd. Wiil yar oo Faysal dhalay baa gabadha waxa uu ku yiri, habar yar waan gaajoonayaa. Inta ay si caro leh ula hadashay bay tiri iyada oo qaylinaysa, waryaa aniga habar yarta ma ihi ee mar dambe ha igu dhihin habar yar. Wiilkii yaraa waa uu iska aamusay, waa uuna garan waayay waxa uu ka sameeyay habar yartii. War la iskuma hayo, gabadha qabiilkeeda bay difaacaysaa. habeenkaasi Faiso hurdo waa ka soo go'i weyday, aad bay u walwashay. Fikir aad u dheer bay gashay ilaa markii dambe kalkaaliso ka mid ah kalkaaliyaasha isbitaalka ay ku tiri, wax walba okay bay noqonayaan ee hawalwalin. War la isuma hayo, Faiso waxaa mar walba qalbigeeda ku dhacayay dardaarankii aabaheed oo ahaa, aabba iska ilaali ajiida. Aji oo micnaheedu yahay dadka wax heebsooca. Si kasta oo arrintu ahaato, fikirkeeda waxa u dheeraa caruurteeda oo aad u jeclayd. Welwel nololeed bay gashay. Su'aalo badan ayay nafteeda weydiinaysay. Su'aalaha ay isweydiinaysay waxaa ka mid ahaa, noloshaada sidee noqon doontaa? Yaase wehel ku noqonayo? Caruurteyda sidee keligii u barbaariyaa? Waxaa kale oo ay lahayd, allow imtixaanka adduunka ii fududay. Faiso isbitaalkii waa laga soo saaray, gurigeedii baa lagu soo celiyay iyadoo laga kabay kalxanta iyo gacanta oo ay ka jabnayd. Faiso markii ay guriga ku soo laabatay, waxay ka warheshay caruurteedii oo dayacan, dugsi iyo iskool midna aanan aadin. Waxaa arrinta ka warhelay Faiso walaalkeed oo London ku noolaa. Waxa uuna u soo diray lacag kaafisa Faiso iyo caruurteeda. Faysal naftiisa xanuun badan ayuu qalbiga ka dareemayay. Waxaa helay tah iyo walbahaar. Wuxuu naftiisa weydiiyey, xaggee wax ka qabataa, maxaa samaysaa oo caruurteydii sidaan ula noolaadaa? Faiso sidee ii arki doontaa? Maalmo kadib qoyskii uu ka dhashay baa looyar u qabtay, waxaana bilowatay dacwadiisa. Reerka arrinkoodii magaalada oo dhan baa ka warheshay. Waxay noqdeen in shaah lagu cabo. Maalintii dambe Faiso waxaa soo booqday imaamka masjidka xaafadda oo u sharaxay diinta iyo waxay ka qabto dadka heebsooca. Waxa uu ka samarsiiyey wixii ku dhacay. Wuxuu yiri, adeer, wixii kugu dhacay waa wax xagga Rabbi ka qornaa. Allana ma mooga xaqdarrada lagugu sameeyey. Alle addoommadiisa waa uu imtixaanaa. Allena waxa uu jecel yahay addoonka ku sabra imtixaankiisa. Noqo gabar sabarta oo wixii kugu dhacay Alle dartii u ilow. Sidoo kale Alle xaggii waxaan kaaga rajaynayaa beddel khayr qaba. Intaa kadib Faysal waxaa la saaray maxkamad. Intaa ayay ku ekeeday qormada qisada jaceyl ee Faysal iyo Faiso ee markeedii hore ku soo bilaabatay sida quruxda badan, laakiin ku dhammaatay mugdiga. Haddii aynu helno qormooyin intaani ka badan iyo xogo ku saabsan qisadani, dib ayaan idinkala socodsiin doonaa daawadayaal. Tani intaan ku kulmayno muuqaal cusub, nabadgelyo.